wixii aad rafaadiyo igu korisa raaxaba ana raad ka barano ka ahsabi ra'yiga weli waxaan hooyarunay dadkay igu roonay ana raad ka barano ka ahsabi ra'yiga weli waxaan hooyarunay dadkay salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti hagaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee haweenka iyo qoyska oo toddobaadkiiba mar goorahan oo kale aad ka daawataan Muqdisho Cable wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta TV-ga ee magaalada Muqdisho barnaamijkeena qoyska iyo haweenka toddobaadkan barnaamijka waxa igu marti oo igala qayb gali doonta Marwa Carafo macallin Saciid oo ah qoraa u kurgala arrimaha bulshada iyo haweenka waliba daraasadeeya arrimaha Afrika iyo sidoo kale dhalinyarada waxyaabo la xiriira barnaamijka waxa soo saartay idin socodsiin doonta anigoo ah Filsan duceysane waxaan u mahadnaqayaa Farax Suweeri Cabdiqaadir iska oo dhanka kaamirada barnaamijka naga saaciidaya muuqaalka quruxda badan waxaan rabaa ugu horeyn martida toddobaadkan ee Carafo inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka barnaamijka qoyska iyo haweenka Muqdisho Cable waa dhawahay barnaamijka waa ku dhawahay waana ku faraxsanahay Muqdisho Cable TV inaan sidaan caasimada u imidba ka bilaabay barnaamijkii ugu horeeyay waa farxad aan la soo koobi karin adigana waa ku mahadcelinaya waayahay Carafo aad u mahadsantahay daawadayaal barnaamijku wuxuu noqon doonaa barnaamij taxanaa oo dhowr qaybood ka kooban laakiin qaybtiisa ugu horeysa aad barnaamijka ku daawan doontaan qaybtan koobaad ee toddobaadkan iyadoo ay nagu soo wajahan tahay maalinta 8 Maarso ee haweenka mowduucyo la xiriira haweenka iyo taariikhda gabadhu ay lahayd sidoo kale kufsiga oo noqday fal ku soo laabtay dhawaanahan bagayga Soomaalida ayaan isna wax badan ka eegi doona oo ka dul istaagi doona oo Carafo wax badan ay nooga sharaxi doonta soo dhawow waxaad rabaa marka hore daawadayaasha inaad isbarto xageed ku dhalatay ku soo barbaartay ka hor dalka intaadan ka bixin waa dhawahay waxaan ka bilaabaynaa barashadayda marka hore Muqdisho caasimada ma sha Allah aad bay macaanta aad bay nabad u tahay Ilaahay ha u barakeeyo waxaan caasimada imid almost sanad baan ku socdaa hadda waxyaabaha runtii aan aadka ugu faraxsanahay waxa ahayd mar walba waan rabay in aan ama dhalinyaro ama aan dumar ama wax bulshada kuriya aan ka hadlo laakiin kaliya waxa dibadahaas marka la joogo tuulka la haysto oo qani kuma aha maaragtay barnaamijyada telefishinada raadiyoyada sida wadankeena marka waa dad qalaad oo mar walba aad kaga dambato bulshada baraha bulshada waxay noqotay waxa kaliya oo aad ku hadli karto marka barasho gaaban aniga hooyo ah horta waxaan ka soo jeedaa ka imid Mareykanka sanad ka hor waxyaabaha aan wax akhriyaan ahay runtii ilaa hadda arday baan ahay sababtoo haddaan dhaho waxaan ahay qof yacni abwaan ama qof waxaan ahay macallin ama qof walba oo aqoon gaara mar walba waxbuu baranaya wax walba baa taabanaya marka kulley weli arday baan ahay waxyaabaha aan aadka u jecloon akhriyana waxa waaye runtii dhinaca siyaasaddan u yara jaleeca of course dumarkana waan ogahay caqabadahay soo mareen March waxaan ku jirnaa mabruuk Filsan waxaan ku jirnaa bishii barakaysnayd ee dumarka Soomaaliyeed loo dabaaldegayay waxaana nagu soo food saaran 8 Maayo marka aanon hadalkayga badinaynin qof wax akhriyaan ahay wax qora ilaa haddana wax baranaya marmar afareyda waan tuurtaa oo dareenkayga marmar waan ku cabiraa wax dhaca marka waxaan isku tilmaami lahaa qof kala faa'iideysi inaan halkan u joogno bulshadana aan ku korino wixii dhinacayaga ah aad iyo aad waayahay waxaan rabnaa inaan ku noqono gabadhu kaalinta ay bulshada ka ahayd iyo taariikhda gabadha ee xilliga hore ee Soomaalida wallaahi anigu kulli waxaan ku baraarugay dumarnimada madhaxe inaan dumar ahay xataa koriimadii aan korayay kuleejan ku soo koray dadka kuleejada ku koray wiilashii la koraan ka waxaan la soo koray almost waxaan ahaa baqal farda la miratay
faras yaa maamahdii ay qaldeen oo cunsuriga ahayd waxay ismoodaa faras runtii markaad wiilasha la korto carqabadahan hadda Soomaaliya laga sheegayo ilaa iyo 30 gabdhood annagoo ah baan dhowr boqol oo wiil la kornay ma u malaynayo maalin inaan ku seexday inaan ka cabsado wiil Soomaaliyeed sida ay maanta tahay oo yani carqabadaha ay u soo badanayaan dumarka kufsiga calaacalka badan oo dhacaya mana rabno aniga hadda booska aan taaganahay runtii ma raba inaan noqdo qof ragga dhaleeceeya ama ku dhiba waxa maanta taagan waa carqabado wadanku soo maray laakiin waxaan taaganahay tusaalaha weyn oo haystaa waxay tahay on mar walba madaxayga ka bixin qofka ku nool wadanka desertka meesha ah ama qofka ku nool Amazon forest oo kale meesha aan lahayn bini aadam kale oo kula falgala aad ku aragto marmar hadda ka hor culimada waxay ka doodaysay aqeedada ma laga dhaadhicin karaa ma islaamnimo ilaahay ma cadaabaya hadayna islaamnimada arag waxyaabaha ku doodayeen culimo badan oo adduunka ka timid bay ahayd marka aniga waxaan aaminsanahay ragga Soomaaliyeed inaan wacyi gelino inaan wixii tababar ahna aan ka hadalno waxa ugu weyn oo hadda meesha taagan oo dumarku u baahan yihiin ay tahay inaan loo arag xanaf iyo inaan anagu ragga taagayno raggeena waa jecelnahay waana dhaleen waa guursanay waa annaga dhalnay marka mar walba waxaan rabaa in qof walba oo Soomaaliya oo idageysanaya waliba qof walba oo maaragtay wiil Soomaaliyeed ah inuu u arko barnaamij uu ka faa'iideysto oo dhaho maanta wixii aan bartay ama ba aan fahmay baan dumarka soo socdo kula dhaqmaya oo sidaas kaga faa'iideystaa wayahay عارفة واحد إيجا ورنتها نولش هالجوادة يحلي باديها سيدا إيه والواحد كهايسو فكرة هان والله رمتي أنا بقول نصيب بان ويا شهرتين بادية تجا أو كم حشادة كم تولان كل شان مقلي تعلق قبل هذا مدق لكن يران تيدي بوان سوق العاصمة دا كل شيء حمر كتعلا لبد حمر بلا أكتيد مالها بانكو كوري waan ku faraxsanahay inaan anoo yar iskuulka marka la xiro aabahay noo diri jiray baadiyaha inaan soo aragno waxyaabaha aan marnaba iloobin waxay ahayd ayeeday oo runtii dad gabya oo waxaan ka soo jeedaa dhinaca ayeeday hooyaday dhashay baan u tagi jirnay way noo sheekin jirtay waxa gabayadii hore noo sheegi jirtay gabdhuhu siday u haasaawi jireen waagii hore dhaqamada sidoo dhulku nabad waa dhul yar buu ahaa dad dhul weyn oo dad yar oo reer guuraa ku nool marka intay meel walba tagaan bay waxay dareemi jireen nabadgelyo kalsooni laakiin wali waxa jiray bariga iyada xataa dumarku heerin baa la dhigi jiray markii ay doonaan gayaankooda oo kale ama ay ragooda ka qayb galayaan waxa la dhigi jiray heerin oo intay group ama koox soo baxaan bay runtii ayagoo dooranaya qof walba qofku rabo haddana isweheshan jireen cabsi ma jirin guud oo carqalad ku ah oo looga baqo laakiin waxa jiray waxyaabo waagaas geeljiruhu kaftan u qaatay waxa la yiri kaftanku waa hadalka dhaftiisa intuu kaftan ahaado oo sida u dheeraaday oo dhaqamadii baadiyaha kamid ahaayo geeljiro edab darro mid lehna laga weynmayo oo waxyaabo waxa jiray waxa kamid ah waxyaabii dhaqankii hore kamid ah sida markay noqoto xagga taariikhda dumarka wax dhibaato ma jirin laakiin waxa aniga aan maqlay waxa jiray waxa la dhaho sidan hadda gabdhaha marka la kufsado loo dhahayo dhaqan ahaan waa in loo guuriyo ninkii faraxumeeyay waagi hore waxa ahayd wax qabiil ku dugsado oo nimanka odayaasha ah oo wali ilaa hadda dabada haya oo rabin bay inaan anaga shuruucaan leenahay isku difaacno ay ka dambeyn jireen dhaqamada noocaas baa marka badnaa marka waxa laga xishoon jiray inuu reer hebel ceeboobo marka carqabado way jireen waagi hore bulshada baraha ma jirin meel lagu ogaadana ma jirin laakiin waxa jira waxa la dhaho gabdhaha go' lagu ridan jiro la carari jiray gabdha wax la dhigi jiray dabagur baa jira markaas baadiyaha waa baadiyaha oo nolosha baadiyaha waxa lagu leeyahay dabagur waxa la dhahaa jiray oo geeljiruhu soo dhaco markuu soo dhacana uu gabadhii kufsigan oo kale waxa uu ku sameeyo isla markaana gabadhii ay ka xishooto waa la xoogayo saasa yani ay codkeeda kor u qaada xataa ama qayliso
taasoo loo bedeli jiray iyadaa rabtay marka way ka bilaabatay dhaqamo noocaasa even though ay dhinacna xorriyad ka jirtay dhinacna carqabadaha noocaasa oo aan den tooshna ku daarnayn oo bulsho caalam ogeyn oo baraha bulshadu jirin oo wax soo sheega jirin way jirtay عادي عرفوا مدام برنامجنا داوديال أصيب بلن قادنا إنه تحنا نقون دونا موضوعي بدن وكلنا إنه هرسين وكهل دونا بروح عرف عني واحد بدن ضدك كاو قادان مدام وعيقلنا حليات من جرت تحتاج بشهادة لها جرت شفته ذلك أنت هذا كتجين جراد أهان الصومالية مركز أتكتجيسي ما بربر كذا ما كهرباء مركز wax inta la eegay baad garatay iyo Mareykankii xaq safarkaaga nooga war wallahi safarkayga yaro interest ma ahana waan ku soo dari doonaa safarkayga Soomaaliya horta aniga arday baan ahaa waxaan ka tagay 90kii markii qabtii dhexe dhacday qabtii dawladii dhexe oo Soomaaliya ama dawladii Maxamed Siyaad Barre sida loo yaqaan caanka ku tahay waxaan ahaa arday markaa dugsiga sare ka dhiganaya bartamaha oo boondeeraan joognay waxaan xasuustaa ciriiriga ugu badan markaasaan dareennay inaan baxno waayo madaxtooyada iyo boondeere waa god iyo buur ka aad bay u muhiim ahayd inaan ka baxno cause hub iyo waxbaa bilowday marka anoo yar baan ka baxay waxaan xasuustaa aad baan u jeclaysanay inaad su'aasha ay weydiisay walaashii pressure igu saartay adigu ilmaha teenage-ka ay dhahaan oo weliba 16 ilaa iyo 14 meelaha u dhaxeeyaan ahaa waan xasuustaa walaashii dhahaysa soo qaada waxaad jeceshahay marka waan fakiray markaad yartahay wax badan qiimo kuma sameeyaan sida walaashii mas'uulka naga ahayd marka waxaan xasuustaa inaan qoro wax markaan ogaaday waxaan soo qaatay buug aan qofka qolada u horeeyo aan tusana ay tahay Muqdisho Cable TV markii aan ka cararay ay walaashay soo qaaday idil alaabta buugan oo hadda jaldigiisa iga lumay baan soo qaatay iyo qalin iyo dhowr musawiro saaxiibadaya safarkii aan waxaan ku qoray sheeko la dhaho safarkii sugnaaday marka sidaan aniga yaraantayda u arkayay oo aan ka waday waa la baxay anoon raalli ka ahayn laakiin sideen u arkayay da'dayda marka wixii dhacayay anoon image-ka dawladda iyo cariiriga ka jira aan garanaynin shacabkii wixii ku dhacay aniga dareenkayga jidadkii aan maray ilaa Kismaayo aan ku qoray ilaa iyo aan Gaariso meel la dhahayo oo Kenya haday rabto Muqdisho TV-na waan dhigi doonaa saldhigeeda ilaa ay Gaariso meel la dhahayo waan qorayay jidkii xataa qof baan naga dhaawacmay oo gaariga aan saarnayn waan xasuustaa waxyaabihii yaraantaydii aan iloobin wiilan habaryar u ahay oo kala taraag u wado geedo kala hareen waa wixii qaracanka iigu horeeyay jidkiina ku meeday meel kulbiyo la dhahayaan tagnay ka bacdina halkaasaan Kenya ka galnay marka luckily hadii maktabad la helo caana ama Muqdisho Cable TV waan dhigi doonaa copy marka ilaa iyo Mareykanka waxaan ku tagay eedadii baan raacay Mareykanka saasaan u tagay waxaan tagay gobol magaalo madaxda Mareykanka u dhow oo Washington DC la dhaho gobolkaas Soomaalidu way ku yar tahay laakiin markay Soomaalidu kugu yar tahay Soomaali baad raadisaa waxaan xasuustaa habeen iyo maalin hiiraan online gal wadankiiba iga maqnaa waxa tagtaa wax qor gabayo dhageyso maxaa ka cusub yani weligay maalin kama maqnaan aanan dalkayga waxa ka socda ama badii carqabadaha aan ma seexanin haddaan wax baranayo arday waan ahaa jaamacadda dhigta welina arday baan haysan hore u sheegay waxaan kaloo ahaa qof ay dhibto dhalinyarada xataa qurbaha joogta dhowr dhalinyaro ah xataa mar baan wax ka qabtay oo la hadlay oo aan isku dayay inaan noloshooda hagaajiyo maadaama aan ciyaal kulaajo ahayoon nolol adag soo maray marka runtii markaasaan ogaaday inaan dhalinyarada wax ka bedeli karo dumarkana waan ku dadaalaa in badan ha waayahay si kooban waxaa nooga warantaa nolosha Soomaalida ee Mareykanka والله nolosha Mareykanka waxaan aad ugu faraxsanahay inaad su'aasha ay weydiiso dad badan qurba joogta waxay u maleeyaan dad dalxiis iyo daawasho dibadda u jira runtii waxyaabaha wadankeena ka socda wax
ka daran baa waagaa ka socday dad badan ma ahayn choice-kooda ama wax ay rabeen anigaba igu dareen haddana markaad meel tagto waxaa la yidhi sidee ilkana xeerana lagu xagtaa ilkana ku badbaadaan sideed yacni noloshan aad timid aad uga dabaalataa marka Soomaalidu runtii waa dad geed adayg ah maadaama ay baadiye ka yimaadeen waa dad iska dhaqan adag runtii Soomaali badan way ka dabaalatay laakiin waxa dhacday wax la dhaho guurkii halkan joogay oo ragga looga dambeeyay xoogaa cirqalad dhacda waxay tahay markii ood arkayso dhalinyaradeen badanood maqlayso oo dibadda ku dayacan oo rafaadka aad ka maqlayso gaangeyster bay galeen waxyaabaha ugu weyn oo ku dhaca waxay tahay bulshadeena guurkii oo burburay guurkii halkan markuu joogay oo jidka maray oo wadamo tagay dadkii waxa ku dhacay culture crash waxayna garanayn bay arkeen nimankii naagihii waxa u gacan laalaadiyay dhaqankii xagga ka jiray oo dumarka kor u soo qaadayay guurkii yani ninkii naagti cuntada u karinayso jikada ugu jirtay yani hawlihii baa isbedelay marka guur badan baa furfurmay oo maaragtay sidii qurac dumay isku baaba'ay guurka dumay baa waxa ka dhashay ayaan daro ilmaheeni dhalinyaradeenii inay ku jajabaan oo maaragtay ay galaan wax waalida oo kaalmeeyo mar walba ayna helin sidaas ay ku noqdeen dad maaragtay gaangeyster la hadla dad meel daran yani ka leexda jidkii suubanaa ee dhaqankeena iyo maaragtay iyo wadankeena laga soo bartay hooyo kaligeed oo cunugii karinaysa wadankaasoo looga baahan yahay labada waalid inay saa isku garab taagnaadaan iyo raggeena iyo dumarkeena oo wali fahmin baa keentay runtii ayaguna carqabada burburka halkan ka dhacday mid la eg baa iyagana dibadda uga dhacday haddaynaba ka xoog badnayno dee aad arkayso xataa waalid ilmo yaroo hadda dhashay meelaha Norway iyo anu Yurub way naga sii liidataa aan ka maqlay ilmo yaroo naas nuugaya xataa la qaatay marka qiyaasaysa waxa ku dhacay hooyooyinkaas oo kale marka runtii waxaan jeclahay inaan noqdo Soomaaliya maadaama hadda aan joogo jawi u dhaxeeya qurba joogta iyo qaran joogta dadkan ugu yeero oo filsanay adigu ka mid tahay in ay isfahmaan oo runtii qoloba carqabadeeda kale ay fahanto inta aanan toobiga uga bixin dumarka maanta iska leh waa hagaag daawadayaal waxaad wali la socotaan barnaamijkeena haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan xiiso gooniye xambaarsan waxa ay ugu martiya Carafo Macalin Saciid oo ah qoraa u kurgala arrimaha bulshada iyo haweenka sidoo kalena in badan daraasadii arrimaha Afrika iyo wacyigelinta dhalinyaradana ka shaqeeya barnaamijka oo qaybo kala duwan noqon doona ayaa qaybtiisa koobaad aad maanta daawanaysaan inagoo haweenka Soomaaliyeed dhamaanteedba leh haweenka Soomaaliyeed horumar maadaama 8 Maarso ay tahay waxaan rabaa inaan eegno markan dhanka kufsiga oo dhawaanahan kiisas badan oo soo noqnoqday ay ka jiraan dalka Soomaaliya maadaama wax badan aad ka soo bartay oo ka samaysay kufsigu taariikh ahaan hadayna waxaad ka taabatay laakiin xaguu ka soo bilowday kufsiga haday in kamidana haday wad ka hadashay laakiin taariikh ahaan xaguu ka soo bilowday taariikh ahaan wuxuu ka soo bilowday sidii aan ku dhahayay geel jiraha kaftankiisa gabadhii go'al lagu ridanayay gabadhii habeenka madow loo soo gudayay marka aniga waxaan aaminsanahay taariikh ahaan kufsigu waayo waa dambi kufsigu waa dambi ma aha wax la dhihi karo waa wax qurux badan oo taariikh qurux badan oo ka sheega male laakiin waxaan dhihi karaa bulsho kortay baan nahay baadiyi baan ka soo tagnay magaaladii markaan nimid waxaaba dhacaysa xataa qofku intuu baadiyaha reer magaal ka noqonayo xataa waa waqti ah xataa qofka intuu ka ogaanayo waxani waa dambi oo dabagurkii ma aha oo ma aha gabadhad go'a ku ridanaysay yani oo systemka magaalada uu ka fahmayo qofku runtii baaba waqti ah marka ay waxa uu ka bilowday dadkii reer baadiyaha oo ku soo guuray magaalada qaarkood oo reer magaal noqdeen ilaa maanta ku soo guurayaan ama colaadaha soo kiciyaan ama dhibaatooyin ha kiciyaan hadda colaadaha kicinaya waagaas waxa kicinaya dadku inay yani xataa gumaysigu wuxuu naga rabay inaan dawlad noqono reer magaala marka si aan dawlad reer magaala u noqono markay naga baxeen waxay noqotay in aan
in aan yacni magaaladii nimaano brofesaradana maanta barasarayaasha la sheegayo dhan kulligood baadiyay soo mareen marka waxaad dareemaysaa marka maadaama aan waagii hore kaftanka uu ku bilowday markii dambena inuu noqday wax sidii maaragtay aana isagoo dembiba loo arag laakiin waa dembi weyn oo runtii sida uu uga bilowday dumarkaba culays baa saarnaa xagga baadiyaha marka la joogo dumarka culayskii saarnaabaa waxaa ka mida mataqaanaa oo xagga markaan joognay baadiyaha la jiray dumarka culayskii saarnaa hawsha gurigaba dee waaba mar walba wiilkaa loo roonaa loo gacan bidixin jiray loo gacanta midig la siin jiray marka dumarku waxayba dhaxal u heleen oo taariikh u heleen oo ayeydayba ay ka mid ahayd inay buulkii iyadu dhisto ninkina halkaasaa gogol loo dhigayaa hows galbeedka weliba shaah buu sugayaa buulkii bay dhisaysaa dhigtii bay saaraysaa caruurtii bay haysaa xeradii bay xataa inuu dhacamaha soo jarjaro meehe ay oodaysaa hawsha annaga hadda dumar ahaan maantana adkaysay waa ayeeyooyinkeen iyo hooyooyinkeen baa anigaho culayskii ay ka soo mareen dumarnimada oo yacni mas-uuliyad weyn baa saarnaan jirtay oo ka badan maanta ta magaalada dumarka saaran dumarka maanta joogaa runtii dee waxyaabo badan oo ka fakaraan way jiraan laakiin mas-uuliyaddii berigaa haysatay wax badan baa naga kacay laakiin waxaan kuu sheegayaa xataa markay noqoto mahmaahyo 2 ilaa 3 aan kuu hayaa oo tusaya dumarku in mar walba xataa niyadda aan naloo dhisi jirin oo ninka ragga waxyaabaha kufsiga dhiirigeliya oo baadiyaha ka soo bilowdaa waxaa la yidhi gabari ama god ha kaaga jirto ama guur ha kaaga jirto nolosha dhan gabadha aniga adigaba laga bilow aniga runtii aabbe qadariyo dumarka ay dhalay laakiin taasi rag badan bay u tahay maaragtay waxaa la dhahaa gabar markii laga soo doonto ha layga guursado intay ceeb iyada dhanba inay ceeb u soo jeedeen diinteenna islaamka saliimkaababa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam baba dardaarankiisii waxaba ka mid ahaa oo uu u soo baxayba in dumarka iyo dadka midabkoodu madow yahay baa labadaasaa ugu weynaa taasa caddaynaysa marka god ha kaaga jirto carabtii cunsuriyiinta ahayd baaba dee laga bartay dhaqankaa xun u malayn maya inay soomaali asal u leedahay marka waxaa la yidhi gabari god ha kaaga jirto ama ama guur marka maadaama dee dumarkiiba yahay wax la isdhaafinayo dee ninka raggaa iyo midka ciyaal suuqaaba sibay u arkaan kan ciyaal suuqa wuxuu u arki karaa dee waxaan god baaba loogu talagalay waxaa rabta ka samee waa wax uu maqlay moogtay oo ku koray dhaqan ahaan midda kaloo meesha taalla waxa oo aniga aan nacabahay runtii markaan weliba qurbaha tegay aan sii nacay baa waxay tahay dameer farda la daaqday ama la miratay waa dhaqamad waa mahmaahyaha cunsuriga waxay ismoodaa baqal ama faras dameer farda la miratay saasay ismoodaa marka maxaa loo dhihi waayey dameertaasi weli waa dameer ayadoo yacni haddii qof dumara loo fiiriyo qof dumara hadday maanta suxufi tahay qof dumara hadday injineer tahay qof dumara hadday dhakhtar tahay hadday qof dumar weli waa dumarkeedii mahmaahdaasi waxay ku tusaysaa dameerta in laga wado dameernimada oo la gaarsiiyo faras ama geeyo si yacni haddaan dumar ahay ma inaan rag matalaa marka saasaa laga wadaa mahmaahdaas cunsurinimada ay uga mid tahay midda u dambaysay oo runtii ragga ay niyadda ku dhisan jireen oo baadiyaha ay uga soo bilaabeen waa geeraar yar geeraarkan waan ka xanaaqi jiray laakiin waan yara xafiday waayo wuxuu ka mid yahay mataqaanaa waxyaabihii ragga dhiirigelin jiray raggu way is dhiirigelin jireen waagoodii hore laakiin waxaad garanaysaa dumarka yacni wax cilmi nafsigooda dhisa ama psychologigooda dhisa runtii badan may soo arag gabaygan baa maqraati kaaga ah gabaygan wuxuu dhahayaa waa geeraar 3 eray weyn nin baa shallaysanaya baadiyo joogo guud weyn oo isqurxinaya markaasi wuxuu leeyahay hashiisi buu la hadlayaa geelana laga jeclaa hashibu wuxuu ku leeyahay geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad geerida haween guud la fira iyo guursi laga qaad waaba lagu baashaalaa geerida anigana geeridaydana
gabla guri bacay iyo gablan laga qaado marka ninkaas aba noo dhameeyay wuxuuna noo sheegay neefka geela in laga jecel yahay maanta dhimatana mid kale laga guursanaa de waa lagu bedelaya waana waxyaabaha anigu aan ragga ugu joojin hatta haddaan nolol la qaybsado waa qofka bini aadamka oo dumarka ah waa inay mar walba iyadu ay u taagnaataa hadday guur ku jirto iyo hadday golo kala fadhidaba in ay iyadu nafteeda kobciso marka runtii dhaqan ahaan halkaas ay nagala jaan qaaday mahmaayahaas noo jilciyo noo cunsuriyeeyay annagoo bislaanay baa magaaladii la yimid markii dambana runtii wadaadadeenni iyo culummadeenni baa soo kacay culummadeenni markay soo kaceen runtii markay wacdinayaan tanna in layga qoro waan rabaa weligay waan dhegaystaa sheekh mustafa ismaaciil sheekh la dhahan sheekhyada aadka aan u dhegaysto runtii anoona isaga dhahaynin waa nin xuno aniga waaman jeclahay laakiin waxaan kuu sheegayaa sheekhyo badan runtii ma sheegaan dumarka xaquuqdooda xagga diinta xataa bal gabaygiyo geeraarka hana lagu ammaaninba laakiin xaquuqda dumarka diinta islaamku siisa ilan dibadaha markaan tagnay waxyaabo badan baan soo ogaan qalin iyo buug baa lagu qoraa waxyaabahan haweenkan lagu difaacaa sharciyaa lagu difaacaa laakiin diin ay runtii weheshadaan ma haystaan imagine annaga diin baan haysanaa diintaasoo tan iyo maalintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu risaalada loo dhiibay intuu orday buu khadiijo ula tegey weligaa intuu sheekh halkaas soo fariisto inaad adigu akhrisatood ka baaraan degto siirada ma ogi weligaa intuu sheekh halkaas soo fariisto ku dhihi maayo dumarka waxa weeye diintay wax ka soo badbaadiyeen diinta dhan oon ku dhaqmayno radiyallahu khadiija waxay ka ahayd yani qofkii ugu horreeyey oo xataa anigu waxaan maqlay ninkii weynaa oo asaguna hindiya intaa yani aan kuu sheegayo waxa weeye nabigeenu siduu ula tashaday qof dumara isla markuu la tashaday iyaduna taladii fiicnayd say u siisay oo ahayd soo bax u tagnay ninkii manka ahaa oo يعني ديمه هره كسور جيد أي أتكتي يعني واحد هي ثلاثة دين تكون بتبادي إلهي بتباديني الدين لكن هدول نبيجو ونا كوكل صانين دمرني مديدة وما أوجي مديدة نكى كلا يسوون مجعلها أو حيرة إيش غاندي أو هندي كسور جيد السجن الشاكن كعجها يا دمركي دمرني ماذا لقى هذلو التاريخ ده حيقرطع السجن كليه إنه أهنيك أوري أو أمنيجا ينبت جليدا كده أنت سي أنا حبض الدعين سي أنا دجال الجلين سي بيسفول هذا يهارموني وكده أنت لكن هذا كهربان وحن كده جيستي جامعة ويلكو أوجو هاوري سنة ويلكو أوجو هاوفير هذا الكلام ويلكو أوجو هاوري سنة بركز وحي سيدي أوري سنة سي مال يعني وحكاهدي هول وين ده كلها هدي أوجس بأمانة أنت يراي وشري سيدو طلده وجوين شري سيدو السوق كيني شري إهلك وحصل لم بكهد شري وحي النقطي نكى أنكو شيء إن أو نين عدانا صارضي سؤال بويدي يجورن أيدا أم بير ما تدن واحد بقول قف سؤال ويديني سي هل مرقف أيدي ويدي ملا يعني واحد دمرك الله حقير ينكوش وصوب وده وحير أيدي نين كان بتجليده وكنا علانه أو الدون كلا قيب سنة ثلاثة دو أيدي كلا بركة متكلها واللي جاميان مقش يعني وواحد شراء نينكا isaga maanta jaamacada la hadlaysay Maryland bay ku taala public radio ga public TV wax la dhaho oo shacabka loogu talagalay laga daawadaayo yani wax qarsoon ma aha ninki waxaan ku leeyahay biin hadda dhulka waa la wada aamusay because taariikh ahaan indira gandi bay ku jireen marka runtii waa dhaqan waana dhaqan dumarka loo baahan yahay in ay iyagu iska samata bixiyaan runtii qolo walba iyaga u istaaga ilaa ay dumarku u istaagaan in ay iyagu ka samata baxaan carqabadaha dumarnimo ay haysta qof kale ka badbaadinay male raggu de iyagu waaba ku raaxaystaan noloshooda ilaahay baba u badneeyay wayahay qaybaha dambe ee barnaamijka markaa soo gaarnay waxaan rabaa in carafay anagoo su'aalaha noo haray waqtiga ku beeqaamin doona ragga maxaa ku kalifa inay kufsiga geystaan maxaa ku kalifa ragga inay kufsiga geystaan wallahi runtii ragga marmar laga hadlayo waxa la dhahaa
cilmi nafsi ahaan iyo arrin dhimirka ah runtii xataa waddankeennoo dhanba hadda waxaa loola yaabay kufsiga qof walba oo waddankeenna jooga daraasad aan maraan fogeyn soo baxday oon BBC-da ka dhegaystaa waxay dhahaysay cudurka dhimirka Soomaaliya 3 qofba hal baa qaba daamiinta aniga iyo adiga iyo qof kale qof baa dhiban maskaxiyan marka waxaad dareemaysaa shacab idil oo 30 sano ku dhawaad oo culays dagaal haystay runtii waxay noqonayaan sida nimanka militariga oo wadamadaasba ka sameeya waxyaabaha violentiga iyo dhibka ah wadamada waxaan ka hadlayaa Mareykanka markii ay u direen matalan marka waxaan nahay wadan colaadi ragaadisay baa ku kaliftay iyo waqtiga badan oo ay gacantooda ku hayaan waayo dhalinyarada waa la mashquuliyaa adduunka maalintii dhalinyaro noqdaan waa mashquul la'aanta markii wixii ay saasay ku galaan gabadha la kufsado marka carafoy maxay dareemi kartaa cilmi nafsi ahaanka markii la yiraahdo gabadhu maxay nolosheeda sidee dareemi kartaa wallahi qofka dumarka ah runtii hadda ka hor documentary baan daawaday documentary habeenkan daawaday wallahi waan iska ooyay weligay umaan malaynin sheeko noocaas qof dumar ah inay taaban karto waxay ku leedahay markii dad baa waxay dhahaan nimanka naagaha kufsada maanta lama dilayo dambi may gelin laakiin qofta dumarka ah cilmi nafsiyan markii la xoogo siday naagahaasi ka sheekeynayeen waana documentary yani adag waxa lagu sameeyaa qalbigay ka dhintaan adoo xabad ku dhufatay bay la mid tahay oo dilay marka ina way nooshahay dhar bay qabtaa ummaday la nooshahay ma ahane macnaheedu ma aha qofkani qalbigay ka nooshahay xataa mustaqbalkeeda inay nin yeelato inay caruur yeelato waddankeennana lama maro counselor iyo dad ka samata bixiya ciilkii iyo cadaabtii uu ninkani ku baday wax ka samata bixiya waddankeennana ma taalo oo wadamadaas waabay ka badbaadiyaan oo meelay ku xareeyaan oo dawa qaarkood la siiya way samri waayeen adu qof ka dhintay miyuu samraya cayaar ku samri maayo saasoo kale dareeman dumar waa iyaga xabad lagu dhuftay dunidu waxay ka aaminsan yihiin oo qabdan kufsiga ay ka yiraahdaan wallahi dunida runtii waxaad arkaysaa bulshadii korta oo magaalowda oo horumarta way ka sii dhib badan yihiin laakiin iyagu qofka bini aadamka ilaa uu og yahay waxa la dhahaa Soomaalidu kal naxdahe kal xishoota male walba waxa kal naxday leeyihiin yani adduunka waxa ka jira sharci adag oo mar hore sameysteen qofka kufsada jirka gabadha wuxuu u geystay 1 2 3 inta ay gaarsiisan tahay hadda Caaisha anigoo mar labaad ka tacsiyeynaya falkii xumaaya gaalkacay ka dhacay oo kale way dhimatay iyadu wadamadaas qof walba qofkii naag xooga dambiye shuruudo ah oo dastuurkooda iyo sharciyada wadanka ku qoran marka ninku markuu naag kufsanayo wuu og yahay in aakhira loo diri karo wuu og yahay inuu xabsi daa'in mudan karo marka waxa ka samata bixiya ciqaabta weey waxa kale oo ka reebay wadankeena waxa kaliya oo arrimahan loogu soo badanaya waliba dawlad goboleedyada oo aan waliba iyaguna sharciyo toos aan u soo saarin baa keenaya sharci toos oo laga baqaa la rabaa looma baahna oday dhaqameed hebel inuu fariisto oo uu dhaho anaa ka maaragtay sidan dhahaya oo aniga maaragtay dhaxalkii iyo wixii ay gabadhu markay dhimato hadda Caaisho kale dad baa waxay u soo baxsanayaan dhaxalkeedii amaba diyadeeda waxa qaadanaya hooyadeed xataa ma u badna dumarku ma qaataan diyada ragii adeerkii iyo ma adeerkii oo aan shalay difaacin haday rabaan baa qaadanaya diyadii marka wadamadaasi odayaal yar ma soo fariisiyaan meel bay wax cad ku qoraan marka ninku markuu dambigan galo way u cadahay meeshu aadaya aakhire in loo dirayo og yahay mana ku dhiiranayo hadaan dhimirka laga gelin kuwa dhimirka laga galay way jiraan waayahay gunaanadka barnaamijkan isla taaganahay oo waqtiga aad inooga dhacay waxa jira gabay aad ka sameysay dhacdo ku sii oo ka dhacday gobolada dhexe sidaan jeclahay gabaygaasi iyo waxyaad ka sameysay oo kooban iyo ereyadiisan rabna inaad la wadaagto wallahi anagoo soo gabagabeynayna oona hadalkayga intaana iloobina kaga faa'iideysanaya dumarka Soomaaliyeed dadka madowga markay gumaysiga ka baxayeen rag iyo dumar
way isgarab istaageen dad cad oo xataa aan pictureka ku jirin baa soo galay inay ka samata baxaan gumaysiga dumarka Soomaaliyeed yeyna sugin cid ka samata bixisa waxyaabaha socda runtii way soo noqnoqdeen kufsiyadan marka anoo xagga Mareykanka wali jira gabaygan wixii igu dhaliyay baan wax yar ka sheegaya anoo xagga Mareykanka jira maalin BBC dan dhageysanayay markaan dhageysanayay gabadh goldogob lagu kursaday taasoo Puntland goboladaas ah baa jirtay oo inaad xasuusato ma aqaan baraha bulshada musawirkeedii iyadoo qaawan lagu daadiyay gabadhaas koowna xanuujisay markaan taa ka hadli weynay baa hadda aakhira loo diray marka waxaan way soo socdeen gabaygii marka waxay ku soo gunaanay gabaygu wuxuu noqonayaa marka ninba BBC da ka hadlay wuxuu yiri annaga dhamaysanayna BBC duna ha ka dhaafto dadka ay wacayso waanan annaga soo dhamaysanayna annaga inoo taala marka way idamqisay waxaan dhahay gabadhii way dilan tahay way nooshahay haddana ninkii ehel u ahaan lahaa baa wuxuu leeyahay nooga baxa annaga dhaqanka yagii ku xeerinayne marka gabaygan halkaasan ka alifay waana yar yahay marka ninkii anoo la hadlaya baa waxaan iri dareenkayga dumarnimo ha turjumin damin yahow ha u dirin duul kale damqashada xanuunkayga ha u dirin duqay iyo nimaan ii danaynayn ha difaacin damiir laawayaashii ii diray qabuuraha kuwii dooxay dushaydoo dilay damiirkayga dumarnimo markaan dugaashaday walaal iga daa'iraahdaba igu dooxay toorey oo aan innaba ii diirnixin haddana daruuftii xumayd dushayda ka muuqatay ku daadiyey dunida caalamka taasoo aan ka wado sidii uu ugu daadiyey baraha bulshada daruuftii dushayda markuu i dooxdooxayna i ceebeeyey haddana oo ii diray baraha bulshada oo dadka dhan ay igu maadsanayeen runtii aad bay u xanuun badnayd taa waxaa ka sii daran midda aan raba inaan ku tigsado taa waxaa ka sii daran nabaradii dushaydoo aan daawo loo helin ayay dambiilayaashii dabayshadan dakeeyaan dalxiisaan adduunyada ninkii xoogayna weli bannaanku jooga anigana dhaawicii baan qabaa dumarnimada waxaa ii dheer waa xaqaygan duudsanoo aan diiwaanka lagu dhigin iyo dastuurka noo yaal aan diiwaanka lagu dhigin kolley daali mayne anoo dumar ahaan u hadlaya kolley daali mayne kaalinteenna dumarnimo dalab waxaan u dirayaa inay doodeenna qaadaan dhiiranaha dareen kale ninka dareen kale wuu jira weli ragii lagama quusane dhiiranaha dareen kale iyo daljiraha dareen kale oo iyo diinteenna hodanka ah intaasaan codsi ka dirsanaya inay ii gargaaraan waayahay carafo waa ku mahadnaqayaa si aada barnaamijku qaybihiisa kale aan ku kulmi doonaayo waa qaybtii koobaad ee maanta marka barnaamijyada soo socdaan iyagana mawduucyo kale oo xiiso badan diiradda ku saari doonaa aad baad u mahadsantahay waa hagaag daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gunaanadka barnaamijkeena qaybtiisa koobaad ay martida inoogu tahay marwo carafo macalin Saciid maantana waxaan uga hadalnay mawduucyo kala duwan oo diiradda aan ku saarno ay kamid ahayd taariikhda gabadha Soomaaliyeed ee xilligii hore ee baadiyaha iyo sidoo kale kiisaska kufsiga iyo siyaabaha ku yimaadaan iyo sheekooyin badan oo la xiriira oo waxyaabo badan oo ka daraasaysay iyo dunida sida laga aaminsan yahay ay maanta inooga waratay in badan carafo oo ah qoraa ka faalooda arrimaha bulshada iyo haweenka sidoo kalena u korgala arrimaha Afrika iyo dhalinyarada dhiirigelintooda waxa jiri doona mawduucyo kale oo aan ku kulmi doono iyo qaybo kale oo barnaamijka aan ku soo qaadan doono oo toddobaadyada soo aadan ay taxana inoo noqon doonaan waana qaybta koobaad ee barnaamijka maanta carafo inoogu martida tahay anigoo filsan duceysana ayaa barnaamijka soo saartay idin socodsiinaysay Faarax Subayr iyo Cabduqaadir Iska ayaa ku mahadsan kaamirada quruxda badan muddada barnaamijka uu hawada ka baxayay sidaas nabadgelyo waa inoo qaybaha kale iyo barnaamijka haweenka